koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tariniya hawsha malaweeyeedhaylalamay hadaadideolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay waa kala guurkii yaa kalamaan waxay tahay waa kala guurkii xaad dadka u kala guuraysin xaadse u kala tuuraysin war dadku kala guuri maayaan kala guurkii siyaasadda la gaaray war wakhtigii go'naayoo shalay lagu guddoonsaday hadduu soo gabaabsaday waa kala guur yaa diidi karaa war baryaawunba hal guuro isniidaba teegantiina inta lunguurihaniin sahmaydana meeli lunguuraw war waa kala guurkii iyo kala gurshidaa lagu yidhi aryadhaha idinku waxa la kala guraa iyo waxa kala guuraayo midna kuma jirtiin waxa idin raacaya xiyey yihiin war qurbo joogta haddii doorashada looga adkaado dalka sii joogi maayaan boorsooyinkooda ayay guranayaan waradhaa war ma haysaana waxaa la yidhi gabdho soomaaliya waxay fiirsadeen aflaantan musalsalka la yidhaaho islaamuhu ku waasheen kadibna waxay daawadeen islaan caddaana oo ninkeedii dharbaaxyo ku dhufatay maxaa dhacay uu ku yidhi oo ii dilaysaa waxay tiri jacaylkaad ii qabto intuu dhan yahaan tijaabinayey gabdhihii daawaday mid ka mid a ayaa ninkeediioo daallanoo waddooyinkoo xirraa aawadood wuxuu soo raaca waayoo lug ku yimid guriga dharbaaxo ugu shubtay meeshay ka filaysa maxaa igu dharbaaxday iyadoo isbitaal taaloo faleenba surantay soo naaxday aryaadhaha naagaha musalsalka fiirsada dabaalnimadoora naagtaasi waxay sugaysa mugay ninkeera dharbaaxaysa xabiibi xaadigu dharbaaxda inuu dhihi doono markaasay rabtay inay tidhaaho jacaylkan yaan tijaabihaaye marka naagaha musalsalka runta u qabow in faleeboodhin laydinku rakibaayo waa u malayhaayey ee caana kallisahe war qiso kaloo yaab lahaa dhacday war ma haysiine odayaa wuxuu maqlay wiilkaagii wuxuu qurbaha ku guursaday gabar faransiisa kadibna teleefon inta ka wacay oo wuxuu yidhi faracaynu gaal ma guursan kaamana yeelayo inaad naag gaalaha guursato markaasuu wuxuu yidhi aabbayaa kuu sheegay inay gaal tahay markaasuu yidhi dadkao dhan aa sheegaya naag faransiisa oo cad inay tahay markaasuu yidhi aabbe aniga iyo xaaskaygu waa ku imaanaynaa markaasaana wada hadlaynaa oo wax kastoo i dhahda waa yeela toddobaad kadib odaygii u yimideen gabadhii waxay bilowday inay u adeegto sodogeed maalintii koowaad bicidiyahay ka jartay maalintii labaadna madaxay u xiirtay maalintii saddexaadna waa u masaajayday subax galab iyo habeenna marna shaahay u keentaa marna casiir qabow in yarba inta ku soo noqotay tiraa aabba maxaan ku siiyaa toddobaad kadib wiilkii aabbihiis u yimid oo ag fadhiistay wuxuu yidhi aabbe gabadhi saan yeelaa markaasaa odaygii wuxuu yidhi maandhow gabadhan gaal iska dhaafe hooyadaa waa ka muslimsan tahay minaad furtana habaarkaygaa qabtaa waradhaa war ma haysaane war culusoo inkaaranaa soo dhacayoo nabadiyo nololkaanbay ku gelaysaa la yidhi waxaana la yidhi madaxweyne farmaajo allaha ka cafiye wuxuu amray in bilaha juun iyo julaay la bixiyo 163 milyan oo ka maqnayd shaqaalaha
ciidanka iyo xildhibaanada sannadihii 2014kii 15kii iyo 16kii wuxuuna yidhi allayidhi allah ka cafiye walaalkeen xasan sheekh dawladdii oo hogaaminayay ayay ku maqneed lacagtaas oo lagu lahaa war allah ka cafiye waxaa kaloo la yidhi wuxuu sidoo kale madaxweyne farmaajo amray in miisaaniyadda dawladda kor loo qaado sanadka 2021 lagana dhigo 1.3 bilyan oo dollar halka ay hadda ka tahay 460 milyan war allah ka cafiye waxaa kaloo la yidhi in madaxweyne uu amray in mushaarka ciidanka laga dhigo $560 askarigiiba war waxaa kaloo la yidhi madaxweynuhu wuxuu amray allaha ka cafiye sanadka soo socda in dawladdu qaado doonto 7,000 oo shaqaale oo ah kuwii ugu badnaayo dawlad Soomaaliyeed hal mar shaqaalayso war ilaahay ku afiya wali laaray madaxweynaga may bahadu ku jar doone 8 harumood waliba ku mid jidka indhaheeya afgooy iyoonay muqdisho war allah ka cafiya waxaa kaloo la yidhi lacagtii shilin Soomaaliga ayaa la soo daabacayaa hadda dhow aryaadaha waxaa kaloo madaxweynuhu amrayaa la yidhi allaha ka cafiye bisha November in shirkadihii shidaalka soo saarayay ee yimaadiin oo shaqada degdeg u bilaabaan war allah ka cafiye December shidaal dhoofinta bilaabanaysa la yidhi war allah ka cafiye waxaa kaloo la yidhi bisha January madaxweynuhu wuxuu amray in wadanka oo dhan laga furo qatareen si doorashooyinka qof cod loogu qabto bisha February aryaadaha waxaa kaloo hore loo yidhi allaha ka cafiye dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn laguma daalgooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobe war aniga allah ka cafiye dawladda aniga magacaan nabad iyo nolol markay la baxday isagaa iiga filaaday sababtoo ah Soomaaliya nabadi kama jirto meel aan nabadi ka jirin nolol kama jiri karto waryaa qaraxii sooba ka dhacay burburkiisa nabadii nolol lagu qoray war anigu warkiina markaan dhageystay mucaarad qaran dumis inaad tihiin ay soo baxday aryaadaha war ma haysiina gudoomiye cabdi xaashi iyo aqalka sare go'aamadii ka soo baxay beesha caalamka iyo maamul goboleedyada inta badan waa soo dhaweeyeen war qoorqoori lafta gareen war ma ka soo baxay war horta lafta gareen farmaajo agtiisa inuu ku daahaya waa iska cadda laakiin qoorqoor waxaan u malaynayaa dadkiisa inuu dhinac ka raaci doono war maaha oo koonfur galbeed aan to jirta taas oo bilka baal akriyo usus bedel doona taasna waliya taasiin sheege aan helo gol gubitay guduroor yaleere aryaadaha qaylada injiis ka dhaaftiin safiirkii Mareykanka dollar mooto wuxuu yiri go'aanka aqalka sare ka soo baxay waa sharci cad waana dastuuriyo yiri madaxweynahana waxa laga rabaa maamul goboleedyada inuu wada hadal la galo doorasho wada ogolana la qabto war dollar mooto hadduu warkaas keenay nan garaada ma la dhihi waay araan halkaas ugaaska beelili hada joog ma leer koro war ma haysiin xaaladdu waa kululaatay ergeygii qaramada midoobay jaamaca Suwal wuxuu la kulmaa la yiri taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin waxayna ka wada hadleynaa la yiri khilaafyada siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka waana markii oo horeysay ee taliye ciidan beesha caalamku kala hadasho arrimo siyaasadeed anigu yaroon waxba garanaa tahay Fahad Yaasiin taliye ciidan waa ka weyn ay Suuriya Aljazeera miyaa ka wada yaa naga tag Fahad wariye waa ka weyn yahay waraabe ha kula dheelmade war waxaad ileegtiin dad godka jilco lugooda ku tagay albaabkiisa garaacay haddaan garaacnay ma naga furaan yaa minaad garaacda waa laga furaa hore waxa loo yiri way la daaqaysa waraabe wari mayse iga soo wad war shirkii khamiista golaha wasiirada waa la baajiyaa la yiri maariga weer soo galay wareedhaha kimisti madaxdu noo karinaysay lama keenin miyaa adeer waa kululaato kushiinkii gudihiisa rag isku rahayaan taliyii booliska gobolka Hiiraan Cali Dhuux Mahadale iyo wariye Xuseen Gurmada qoorta isla galay yaa minay qoorta isla galeen yaa adkaaday he war laga la goor sagaareeya ka alay war ku kusuglanka madayow adiguna wiliga sagaaro waa sheegi jirta sodaada saarha lagu tumee Xuseen Gurmada wuxuu yiri banaanbaxa beledweyne lagu qabanayay madaxweynaha lagu taageerayay maxaad u joojiseen taliya Mahadalana wuxuu yiri banaanbaxaas wax ogolaashaa iyo cid nagu soo wargelisay midna ma jirto amniga inaan sugnana waajib ay nagu tahay Xuseen Gurmad su'aalo kale oo tiro badan oo waaliyo weydiiyay markaasuu taliya Mahadal wuxuu ku yiri anigu jilayaasha kalamaan ka mid maahay war ma haysaane Itoobiya mardhow Soomaali abow toos u noqonaysa yaa Itoobiya hay Soomaali abow u noqonayso ununkaaba ka cabsayna inaan Oromo naqanne warka naga dhaxgelinana dhageyso aqalkii sare Itoobiya gudoomiyihii Tigreega ah waqti iska casishay kadibna waxa loo doortay nin Soomaaliyeed oo la yiraahdo Aadan Ibrahim gudoomiyaha aqalka sare waxay qaban jirtay niya Aadan laga rabaa ha la yiri warmayo waxa kaloo la yiri gabadhii ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Itoobiya xilkii bay iska casishay waxayna tiri dalkan kaliya
taliya nin ahaa qabsaday lamana shaqayn karo yaa nin Soomaaliya looma magacaabo waxay qaban jirtaa ha qabtee war gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Yarey ma iscasisho gabadhaas ka bareejayso wallahi Xaliima Yarey mugay iska casisho xilkeera nin qaba karaahu inuusan jirin ma nin Itoobiyana lagu bedelo waryaada maxaa iska galay Itoobiya Soomaaliya dad waalan baa tiini Allahu akbar ya hadda Soomaaliya Itoobiya lagu bedela dhahaysaya war ma haysiin madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor maanta wuxuu gaalkacyo kula kulmay Cabdi Wali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland hadda xanta farashka waxaan u malaynayaa doorashooyinka inay ka wada hadleen war hadda Cabdi Wali Gaas la kulmay danina soo la kulmi maayo bari anna dadku hees la kulmaanay xad isugu diraysiin war yaa Axmed Madoobe qorqor ma la kulmay qaanuunku ma ogolya war qorqor hadda goor wuxuu yiri bisadii jiiraan rabaa inaan hal qol ku wada hayo war bisadii jiir nabad kuma wada joogi karaan muxuu ku akhrinayaa war xeerad lagu kala celiyaa jirtaa naga tag naga taga mukulaalo madaxdoolli ka maxajisaa la yiri adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha haa ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbuyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha alla ilaaha ee markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaadisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajnabta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana sifadinaan ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdiduux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan wuu si soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaad la xiri maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin daawade si aanad noola meeraysan sabskraibde sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeena